maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horeysay go'aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare 6 bishii Oktoobar ee sanadkan kaas oo ay kaga cabanayeen in hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay joojisay safar uu hogaamiyaha xisbigaasi iyo wafdi uu hogaaminayay ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland qaray Jimcaale oo kamid ahaa qareenadii u doodayay dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul isla markaana go'aanka wafdiga Sheekh Shariif looga hor joogsaday safarkooda Kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aan wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la fuliyay isku mar ay hayeen hadda u dhaxay waxaan ka cabanayno qaraarka waxay ahayd amarka saacad ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro amarka kadib inuu dhaqan galo laakiin saacadda la soo saaray iyo saacadda uu dhaqan galay aad isku dhahay oo dadka lagu dabaqo markiiba anaga marka waxaan ka cabanayno waa go'aankan ama marka lagu magacaabo ama qaranka lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaas ka soo dacwoonay markaanada laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana garyaqaanka guud ee dawladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyey aanay ahayn mid maamul isla mar ahaantaana mid ka mid ah saddexda qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dawladeed madaxa qareenada Cabdullaahi wuxuu yiri sharciga iyo waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareenada mana ku jirto qof shaqaala haddii sharcigu uu ogolaado aniga waa ii ogolaanaya garsoorayaasha markay tan shaqaynayeen inay dad fiican u ogolaanaya arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan marka waxaan leenahay mataqaanaa taas marka waxaan leenahay go'aan maamul lama hayo dacwaddu go'aanka maamulna marka uu soo baxo inuu toos ugu socdaa cidda uu toos ugu socdo ayay hadduu igu geysta ka dacwoon karo haddii marka ay jirto dan dadban marka dadkan xaq u male inay dacwadteeda maxkamadda go'aankaas waa usoo gudbinaya maxkamadda haddaysan haynin waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kabaniyada la hadlaayay dadka mataqaana muwaadiniinta lama go'aanka laga dacwoona kaas waa go'aanka lagu sheegay doodeer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul qaray Jimcaalana aanu ka sii mid ahaan karin qareenada u doodaya xisbiga himilo qaran in qareen Jimcaale uu yahay shaqaale dawladeed oo aan awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda showrka kadib maxkamaddu waxay go'aansatay dacwaddan inay tahay dacwad maamul isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dowladda dacwadda ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa muddo 5 casho u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareenadooda u doodaya ku soo dhameystiraan maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay u soo kordhisaan qareenada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud aanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay u soo gudbistaan qareenada ay u soo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay ku soo dhameystaan hawshiinaas maxkamadduna waa xirantahay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho